الرحيم ان markuu ugu horeyso madaxweyne xasan sheekh waa mahadsan tahay Universal TV iyo cawil barnaamijka inoo fududeeyay kulligiin waa mahadsantihiin ilaaha mahad iska leh runtii waxaan kugu amaanayaa markuu ugu horeyso madaxweyne Afrikaan ah oo ogolaaday in ummadiisa su'aalo ay weydiiyaan wax aad u yar waay inaad noo ogolaato ku mahadsan tahay madaxweyne runtii waxaan ka soo jeedaa nin Soomaaliyeed waxaan ka soo jeedaa gobolada koonfureed 1950 ilaa hadda waxay ku doodayaan siyaasiyiintooda inay u baahan yihiin federalism ay u baahan yihiin hadda baarlamaanka cusub niman aqoon-yahaniin waaweyn ah oo waliba xildhibaano ah waxay noo cadeeyeen ay warbaahinta ka sheegeen in federaalki ilaa hadda aan la sheeginba oo ma qaadana mise in dastuurka uu ku qoran yahay ilaa hadda aan la cadeynin arintaasi in si fiican aad inoogu jilcayso waan jeclaan lahaynay waxa dawladdaadu ay sheegtay in deegaanadu dadka ku nool iyagu ay qaabkii la isku soo dooran lahaa ay wixii iyaga inay ka mas'uul yihiin midda labaad madaxweyne adoor hali su'aasha labaad oo aad ugu weyn waxay tahay runtii ilaahay wuxuu abuuray bini aadan haddana aan kala midib ah haddana kala luuqad ah telefishinka qaranka wuxuu yahay waa telefishin ummadda dhan u dhaxeeya haddana waxaa inoo muuqata inuusan maadaama dastuurkii uu ku qoran yahay maay maxaa tiri la yiri maayga inuusan meesha yani ka baxayo uusan ku muuqneen gobolladaan lixda gobol ahna waxay u badan yihiin gobollo intaasoo lahjadood ah loogaga hadlo haddana maayga ay u tahay hooyo ay u tahay qorshahaaga ma kugu jirtaa maadaama cusub tahay in maayga aad telefishin qaranka lagaga hadlahay waa mahadsantahay arrinta ku saabsan Ilyas maay iyo maxaa tiriya dastuurka ku qoran sorry maay iyo maxaa tiriya dastuurka ku qoran haddana mar labaad xasan sheekh ma jecel yahay ima necab yahay kan maaha waa arrin dastuuri ah taladaasina waa tala fiican waana la yeelaa idaacadaha oo private ka ah ba qaar yeelaan tan dawladdu waa waajib waa la yeelaa hadii